maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay tilmaameen in dib u dayactir ay ku sameyn doonaan goobaha danta guud ee gobolkaasi. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Ismaan Ilkaase. dayactirkan lagu sameeyay hargadan oo kamid ah argooyinka ay caanka ku tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa fuliyay dhalinyaro si iskooda isugu xilqaamay in dayactir ay ku sameeyaan goobaha taariikhiga ah ee magaalada iyo in qashinka ay ka qaadaan hareeraha wadooyinka magaalada Beledweyne isla markaana la magac baxay ururka midnimada Hiiraan. gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibrahim Fodcade ayaa xiriga ka jaray dayactirka lagu sameeyay hargadan waxaana ka qayb galay oo goobjoog ka ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Beledweyne dhalinyaro iyo qaar kamid ah qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. gudoomiyaha ururka midnimada Hiiraan ee ayagu fuliyay dayactirkan lagu sameeyay hargadan Cabdi Muumin Cilmi ayaa faahfaahin kooban waxa uu ka bixiyay dayactirkan iyo ololaha nadaafada ay ka sameeyaan magaalada maalmihii ugu dambeeyay. waxaan marka hore u mahad celinayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo dhammaan ururada qaybaha bulshada gudoomiyaha ururka haweenka iyo asxaabta kale ee maaragtay ka soo qayb gashay xafladan. runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in intaanu ummadu ay meeshan caawa iskugu timaado. halkani waxa waaye arga labaad. runtii argadani sidii loo dhisay 1969kii wax dayactira ay heshay ma jirto. anagoo ah ururka midnimada Hiiraan ayaa u istaagnay inaan maaragtay aan bilicdan u yeelno ku soo celino. ururka midnimada Hiiraan wax badan oo shaqo ayuu qabtay insha Allah wax badan oo hadda kadibna hadaan sii jirno oo sii noolnahay waa qaban doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. waxaan qabanay waxa kamid ah oo maaragtay aan bulshada u sheegi karno xaradii daraawiishta oo 12 kaariko qashin aan ka qaadnay boondaliqliqati iyo Sheekh Xasan Barsane inta u dhaxayso oo carab aan ka dhignay oo wixii qashin yiila aan ka qaadnay. إن شاء الله تعالى وحنا ربنا ضمان مجالات قيبوين كذا كلاتود وقشين كأو يالله إن نقادنا بلعده مجالات سي لوي قيني قروح ده أولى هذا إن عندي بانوس على هذا ولا يرادو. فرحان عمر عرته gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Beledweyne ayaa bogaadiyay dhalinyaradan dayactirka ku sameeyay argadan isla markaana ballan qaaday in maamulahan ay la shaqeyn doonaan dhalinyaradani. ururka midnimada Hiiraan isu soo shaac bixi hadii maamul degmo ay tahay hadii maamul gobol tahay ay marqaati ka yihiin ilaahayna marqaati uu ka yahay. waxaan idin kala shaqeynaynaa amniga, waxaan idin kala shaqeynaynaa xasiloonida, waxaan idin kala shaqeynaynaa bulshada isdhexgalkeeda. intaas baa idin kala shaqeynaynaa insha Allah Ilaahay idinkiis hadii maamulka degmada aan nahay. marka labaad waxaan mahad u celinayaa ururka midnimada gobolka Hiiraan oo u istaagay ilmo wiilal yar oo dhalinyaro gabdho odayaal haween kulli way ku jiraan. ururkan waxaan dadka u cadeynaa in uu yahay urur iskiis isku xilqaamay oo raba inuu gobolka Hiiraan u istaago oo raba inuu hore u mariyo taaka haday tahay ayaga ay xoolahooda iyo maalkooda iyo naftooda ay u horaan. ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waa urur dhisan oo madani ah oo la yaqaano. ururkan waa urur midnimada gobolka waxaan u manaysaa bulshada inay isku wadaan labadii urur laakiin waa kala nooc. ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waa urur dawli ah. ururka midnimada Hiiraan waa urur aan la garab taaganahay heel iyo hoo. waxaan ummadda reer Hiiraan ku bogaadinaynaa in ay taakaba jidkooda ayaga dhistaan argooyinkooda ayaga ay qabsadaan. horumarka ka socda magaalada Beledweyne ay wadaan ururka midnimada gobolka Hiiraan runtii waa dhalinyaro isxilqaantay taakulayna aanan haysanin xoogooda iyo maaragtay sheegani midnimadooda ay heerkan ku gaareen. meelo fara badan way ka shaqeeyeen. waxaa kamid ah xirada daraawiishta ay ka qaadeen qashin fara badan ay ka qaadeen iyo 12 kaariko howlwadaag ilaa argada way ka shaqeeyeen waxayna ka qaadeen qashin fara badan oo yaalay. runtii waa guul u soo hoyatay gobolka Hiiraan in dhalinyaro ay isxilqaanto ay muruqooda iyo maaragtay sheegani maalkooda ay geliyaan ayagoona cid kale ayna ka helin wax taakula. runtii ka maamul ahaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay. gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibrahim Fodcade ayaa amaanay dhalinyaradan fuliyay howlahan lagu dayactiray argadan isla markaana xiriga ka jaray argadan ay dhalinyaradu ay dayactirka ay ku sameeyeen. ururka midnimada Hiiraan oo argadan ku sameeyay dib u habeyn iyo rubursyon wax la yiraahaa. caawan waxaan ka jaraynaa xirigii argada oo sidaan loo qurxiyay. waa ku mahadsan yihiin reer Hiiraan. waxaan u sheegaynaa inay saano kale dalkooda u dhistaan ay qurxiyaan wadooyinka ay qurxiyaan ay leeyr ku xiraan guryaha ku soo jeeda mintaqaana laamiga aan dhisano danteena anaga aan habeysano laamiga magaalada laga dhigo magaalo nadiif ah
waa xarunta gobolka hiiraan magaaladan intaan la eg inay mataqaanaa qashin qubka waxaas laga daayo Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed Beledweyne